oo bandhigiisa ay ka qayb galeen in ka badan 500 oo qof oo isugu jira lamaanayaal iyo dadka ehelka u ah jacaylka. su'aashaan weydiiyey qoraaga ee keentay in mar kaliya jawiga goobtu isbedelo ayaa waxay ahayd adiga wehelkaagii mee عايدرو سؤال أنت أنا كجوابين وحلي عاو أنا وهلكي هلكم مودح بديا مكان إيه هلا يسوقو أنا قاعد أسوق بصدارة بالواي أنت أنا قاعد أسوق بصدارة هل كان حق وجرا هل كان واحد وجرا هدية قالقة إن عاو قدوسين دونا قفك نرش إذا أوطوري أو قوتهم فديدا مكان هلا يرسوقو هلا دورير بالعبد السمد بين ويجي دونا وهلك وهلك نوكيرو سيدا وهلكي سيكون غاي يا رمال أنا شكو هاي عبد السمد يميس كوكي دونا قفك أنا لا شعور دورتي لوح فديا قوتهم هذا هو قصي صعدا لما كرنا يوقف كل هاي أنا قاوم ما كرنا يوقف كيجا قاعد الصوت صوت إذا ما ديرا هذا هو ياك شوكتا تلو ينما توتا waxa fadhida noloshaydii farxadaydii qofkii aan dunida u jeclaa waa qofkii markii aan qorayay buugga hadiyad jacayl garabkayga taagnayd waa qofka maanta oo aan qorayo aan soo bandhigayo buugga wehel jacayl ila joogta jacaylkaygu wuxuu dhisnaa muddo 4 sanadooda hadda waa 4 sano jirsaday waxyaabaha cajaabkeedii haya waxa ka mid ah inuu saaka meherkaygu dhacay هيا وعرين كله وعجيبة وعرين كله والله يابله هيا قرا ساقا كلي كورو دعاي مهركايغو هيا انتينا بدل ميدان اوغين هيا wuxuu ka dhacay masaajidka waxyeen la yiraahdo waa hada waxaan gacanta soo qabsanayaa gacansadayda subaxdii ayuu meherkiisii ka dhacay Hargeysa habeennimadkiina waxa uu isla Hargeysa ku daafuray buugga wehel jacayl isagoo noloshii kelinimada iyo xidhiidhka jacayl ee soo taxnaa muddada 5 sano ah ku dhow ku soo gabagabeeyay inay isweheshadaan oo nolosha ku midoobaan